waxaan tegaynaa wadankii kaba xoogaa yar waaweyn baan xidhanayaa waa hore gabadha qisada soo dhiibtayna wayna daawanaysaa insha Allah waan rajeynaya iyada iyo xaajigeeduba inayna wada daawan doonaan waxaanu isjeclaanay wiil yar wiilka markaa jaar baanu ahay waa waagii burburkii kadib wiilka markaanu isjeclaanay oo aanu inankii waanu isjeclaanay aad baan isku jeclaanay waa telefoon ma jiro laylayn ma jiro waraaqahan baan isku qori jirnay warqadaas ii soo qoraa warqad baan uga jawaabaa gabadh markaa walaashay iyo mid walaashiis ah baa noo dhaxeeya inta badan waraaqaha mararka qaar aan isugu sii dhiibnaa markii haddaan muddo wada soconay waxaa jira wiil inaabtigaya oo Maraykan jooga oo hooyo soo biila ku sawalaal markaa inankii waxaa dhacday in uu wiil waxaa jira markaa inaabtigaya oo hooyo soo biiliya oo ay hooyo ila rabto aniga ila rabto anigana naftaydu waxay rabtaa inankan aan jecelahay isaguna uu jecel dad daacad isku jecel baan nahay deedna waxa la igu yiri wiilkan yar hooyo waxay ku tiri soo fadhiiso wiilkan yana waxba haysan miskiinka ah anigu kulama rabo wiilka walaalkay dhalay ee isoo biila baan kula rabaa waana ku siinaya wiilkan yar iskaga hadh marka wiilkan inaabtigay ah reerkoodu kiini markaa degan yihiin oo gabdho badan baa guriga joogo gabdhahaas badan bay hooyadii islaadahay mid aad uga guurisid isaga hooyadii isaguna uu ogyahay markaa xaafadoodana uu soo biila hooyana uu soo biila wiilkii markaanu muddo wada soconay ayaa maalintii dambe waxa lagu yiri waa lagu kaxaynaya Nairobi baa lagu geynaya wiilkan yar ka hadhi mayside wiilkii waan u sheegay waxaan ku wari saasa lagu yiri ninkaasaa la rabaa in la siiyo laakiin ballani axdi waxaan kaaga qaadaya inaana ninkaa guursan doonin intaan noolahay inaad adigu ilaahaan doonto ayay igu yiri ballantii axdigii baanu kala galnay waxaan tegay Nairobi gurigoodii baa la geeyay isagii baa la soo hadal siiyay waan u sheegay waxaan ku wari walaalo anigu wiilkaasaan jecelahay adigana kuma rabo walaalkay baa tahay jacayl xaasid ha noqon ii qiime hadalkan ku leeyahay iyo aniga rabitaankayga wuxuu igu yiri may anigu maxaad wiilka arku falaysaa aniga aba walaalkaayo adiga ku rabe raguna qofka diiday daba orda yaha habla aan ugu diray sameeyo rag waxa u daran ku diiday adaa tiraada ka hadhi maayo haddaan shukaansanaba naga wardaanba naga warda haddaan shukaansana ku soo deedna wiilkii waxaan ku wiri masaas ahaa waa haddaad i calfato waxaa dhacday inaan inankii lacag buu markaa ii soo dirayaa kii inaabtigay inaan wiilkii marba hadiyadu sii iibiyo ciddii baxaysaba u dhiibo boostada u dhigo maalin kasta sawir intaan tago kii shakiir ka sheekeynaysa ubaxa la isku dhiibay keliga intaas soo sawiraan sawirada u sii dhiibo maalin kasta sawiro gooni u sii dhiibo hadiyada u sii dhiibo waraaqa u sii qoro isaguna sidii kale waraaqa ii soo qoro aan wali sidii xiriir u leenahay ballan iyo axdinana dhex taalo baa waxa dhacay inankii baa yimi kii Maraykan joogay ee la igu daray adkaatay hay hadda adkaanaysa yaa dhow adkaatay dhigaa taaga ku soco kii baa yimi garaacaysan ma santiin ku soco kii markuu yimi waxa la yiri waa lagu siinayaa meherka iyo arooskuna hal mar bay wada dhacaya hay waxaan ku wiri waayahay waxaad siisaan lacagan ku tago markaa lacagu ii soo diri jiray badhna saaxiibkay baan hadiyada ugu sii diri jiray badhna waan haystaa waxaan ku wiri waayo waxaan rabaa inaan tago koofeerkoisi soo hagaajiyo intaanay meherka iyo aroosku dhicin gabadh baa i raacday waxaan tegay koofeerkii baan tegay koofeerkii markaa maan tegin lacagna waa la siiyey koofeerkii maanan tegine gaadhi intaan raacay baan dhaqaajiyey
حاجة ولا عاجزة caawa waa arooskii galabtoo kale waxaa la rabaa in la meheriyo caawna la aqal geeyo waa subaxnimo Kenyaan ka baxaya waxaan rabaa inaan tago mandheero gaari kale ka sii raaco kismaayo ha saa u sii socdo ilaa ay wadankii wadankii baan rabaa inaan tago caasimadii marka wiilku caasimadii baan kaga imi kow deena gaarigii baan raacay gaarigii markaan raacay inankii waxaan ku yiri waxaad sameeyay gabadhii waxaan ku yiri walaal gurigii ha tagin hadeer haddaad tagto meeday baa lagu odhanaya oo la soo qabanaya lacag baa siiyay waxaan ku yiri meelahaagan iska joog meelahaagan markaad iska joogto caawa markay tahay gurigii taga waxaad raacday gabadhii way tagtay aroosku ha baaqde gaarigii baan raacay mandheeraan tagay lacag baan iska haystay hotel baan degay kii kale hadhow aroortii ka sii raacay habeenkii gabadhii tagtay iyadoo arooskii la diyaarinayo gabadhii meeday koofeerkay ku maqantay leeyahay koofeerkeedii okay hadda gabadhaas miyay saxsantay iyadoo nin loo guurinay baxsatay ilaahay baad ku dhaariyay miyay saxsantay bal way ha iyo maya soo qora way saxantahay ka baxsatay ma saxsantay ee waalidkeed diiday saxantahay may saxsantay ha iyo maya yes bay soo qora leedi ku dhufay hadda waxa ka dambeeya hadda waxa odhanna wala khiyaamay ku soco jacaylka anigu caawa la jira gabadhaas deetana mandheeraan tagay hotel baan seexday aroortii baan kii kale ka raacay kismaayaan tagay intaan sii socday gabadhii habeenkii bay gurigii timi waxaa la yiri naameeday waxay tiri way tagtay gabadhii gaari bay raacdo ninkii bay aadi gabadhu way saxsantay eegi gabadhu way saxsantay inay cararto nin qofka jecesha la guursada ilaahay laakiin mid xun ugama dhigo ku soco aamiin deetana waxa dhacday in islaantii hooyaday intay wadankii la hadashay 4 jaafa jugle oo eedo tahay ku tiri lacag baan idin soo diray tolay ninka gabadheedii rabay inuu la baxsado nolosheedii burburinaya ee arooska u diidan ninka waa inaad meydkiisa ii keentaa islaatay saddexdii baa leh hooyada marka ha hayo wiilkii baa loo tagay oo warma qabta aho meel kasta mindi baa laga geli anigu waan sii socdaa ma ogi subhanallah mindida ugu daran waxa laga geliyay halkan yar ee maaragtay xudunta ka hooseysa ee waxa la yiraahdaa xubinta yar ee la yiraahdo kaajahaynta kaadida qabata ayaa halkaas ugu darneed oo mindi laga geliyay inankii markaa koomu galay isbitaal baa la dhigay laakiin se muu dhiman markaa qiyaastii ma waxay islahaayeen ninka baaskooladan ka gooyay gabadhaba baaskooladan soo socotaa mooyaan xaasidnimo bay halkaa uga geliyeen deetana inankii dhakhtar baa la dhigay inankii markii dhakhtarkii la dhigay oo koomo ku jiro baan imi haddaan imi waa lay sheegay wiilkii waxaa dilay reerkiinii hooyadaa barra kusoo dalbatay dhakhtarkaasuu yaalaa صدقني يا حبيبتي شعاوة رجي مرنا حنيها لقى قراعة مرنا مديبا لا دعاي ما عاد كخلدن عاو نيو عاو مديبا لا دعاي سنة يا عاو نوصت الشنة دمركي deetana waxaa dhacday inankii koomo ku jira markaan arkay nololba waanu kala dhaqaaqnay suuqaan sii maray sun baan sii iibsaday gurigii abarirtay baan tegay suntii baan cabay sun jacaylkayga isagoo kan dhintay meesha saaraneed markaa muu dhiman laakiin aan siri uu dhintay ma nolol baa ii hadhay suuqaan soo maray markaan ka imi wiilkii markaa reerkoodii way hiifayaan ima rabaan ilaa aniga asaayahaygaa loo dilay inaan dul taagnaado inaan ogaado qofkan ma dhintay ma nool yahay marka aniga dadkan hiifayaba uma jeeda waxaan u jeedaa jacaylkaygii halkaa saara aniga asaayahayga loo dil waan soo dhaqaaqay suuqaan soo maray sun baan soo iibsaday gurigii baan imi suntii baan cabay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo qol saa u aala gabadh yar habartay dhashay soo gashay way qaylisay waa layla cararay dhakhtar baa la tegay tuun baa lay riday suntii baa layga soo nuugay
adigu waxa laygu yiri halis baad gashay marba beerkaaga googoy gaadhay anigana taydii may noqon dhakhtarkii isagu yaalina waa laysoo dhigay isagii markuu koomihii kasoo baxayna waa loo sheegay in jacaylkiisii halkan jiifto isaga dartiis kusoo dishay xoogaa markuu soo yarradnaaday ii yimi isku oyne aygu yidhi ma nololba aniga haddaad dhiman lahayd maanta maxaa aniga ii dambayn lahaa anigu waxaa lahay adigu haddaad dhiman lahayd aniguna dhimashadan doortay waxaas laa isla guura halkii baan isku barooranay wiilkii lednaa ilaahay kasoo kici xanuunkii anagana suntii layga soo nugiyo kasoo kacay إله أقول كدامه ور آمين ساقرأ إله أقول كدامه آمين دا إله أقول كدامه آمين شعر كوه هناكسن أقول كدامه هذا كوسا ها إله أقول كدامه ور آمين دا آمين بمرة حيسان دوه يا وح استلون برهوانا دقيستان لا إله إلا الله آمين تاسان هي ما تردن وين دار شو عدي مقلين آمين مسوق قريان حتى قارب ضمبا شعير كروم يي بلاي كشكينا كسعة deetana xaafadeediina waa tan timi markaa go-aan waxaa lagu gaadhay in la iskaayo siiyo waa la iskaayo siiyey markii la iskaayo siiyey aroos fiicanna looma dhigin laakiin annagoo ku qanacsana maadaama aan laabtiis gelinay maadaama aan laabtiis gelinay intaasaa noogu faraxsan inankii shaqo yar buu bilaabay noloshayada waa iska wadanay inankii markaan isqabnay in badan dhowr sano oo aanan awlaad isku dhalin laakiin jacayl haddii la yidhaahdo aan xoog isku jecelnahay oonan maalin kelmadis odhan ayaa xaafadoodii waxay dhahaan waa ma dhalays naagtani war naagtanaan dhalay war ma dhalayso war maxaad kaasiya marka isagu waxa uma joojiyo caruur kasta iyada iga qaalisan buu dhahaa hadalkiibaa markuu soo batay ayaan maalin habeen intaan cashadii usii kariyey markuu shaqadii ka yimi oo nastay oo casheeyey ayaan ku ihi xabiib waxbaan rabaa caawa inaan kuu sheego waxaan doonaya inaad guursato waxaan rabaa inaad awlaad dhasho anigaa raali kaaga ah adkaatay kaama xumaanay adkaatay anaa kuu guurinay hay maasha allah war maasha allah soo qorade hablii wan wanaagsan aawe maasha allah soo qora inta kale yaabi soo qoraysaa maasha allah soo qora deedna wuxuu igu yidhi maxaad ka wadaa waxaan ku ihi waxaan rabaa ilmo yaraad dhashay inaan arko adduunka intaad nooshahay anigu awlaad xitaa haddaanu ilaahay isiinayna adiga adila joogiso adigunbaa ku raba aday igu kaadhan tahay laakiin waxaan rabaa inaad adigu guursato qisada qofka ee ku dhacday inan habarir u ah waaba meesha joogta alla qisada watii habarartay ku lahaa inan baa garatayba afkaaga haysa haddii waxaan ku dhamaatay dadka hasheesheegi haddii wax wanaagsan ku dhamaatana waa habarartay soo qorcaa oo dhan ya deetana waxaan ku idhi guurso raali haada allah ku caafiyo walaal faadmo aamin deetana wuxuu igu yidhi maxaad ku og tahay inaad cilada adiga tahay bilow aniga mindidii igu dhacday ay tahay ay aniga dhankayga tahay aniga adiga awlaadii ah adigana aniga awlaadku ah inaga awlaad isku ah mar dambe afkaaga ha ka soo qaadin maasha allah maasha allah yaa naagina guursado iska daaye haddaad dhimato xitaa ad iga horeyso ilaahayga kaa horkaxeeyo naag guursan maayo dabadaa war faadmo wallaahi horteeda iyadoo xanuunsanaysa inoo sheekeynaysa hal mar u duceeya faadmo cunaha xanuunaya hal mar u duceeya niyo dhammaantiin u duceeya sheekadu hanoo dambayse
سنيده وتعي فاطمة ولا الله كعافية ما هي سامة قال بتقاطع الله كعافية ولا معاه waan u malaynayaa إلهي aamin هبينك السبت ذا هدي لي دين وايو لا إن أنت سايد بشيء كنت هبينك اللي على مسار هدي لي دين وايو ما يذهب على عمسو ما يدو عيني لك ده دونك سنتي كسعة فاطمة هبين دم ما هي هبين كل حتيان لي دوين كسعة dabeedna wuxuu igu yidhi inagaa isku awlaad habeenkii halkii baan isku weynay sidii baan u wada seexanay dhowr casho kadib wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaan xoogaa yaro lacagan ururiyey inaad xajka tagto adigu oon marun qof muxrimkaagu tegaya aan kugu daro maadaama labadeennaba aanay inoo suuroobayn inaan wada tagno dabeedna waxaan ku idhi meel aanaad adigu tegayn aniguna tegi maayo ii ogolow inaan ana shaqeeyo maadaama awlaad guriga inoo joogin si aan lacag u urursano hal mar xajka u wada tagno uu iga ogolaaday meel isbitaalan shaqo yar ka helay halkaasaan kasoo shaqayn jiray isna dhankiisu ka ururinaya ana dhankayga baan ka ururinay markaa reerkii wiilku ima arki karaan wiilkii asaayahayga loo dilay hooyadii waxay leedahay naagtii asaayaheeda loo dilay wiilkayga aniga reerkaygiina isaga ma arki karaa oo nin faqiiran waxba haysan ayay raacday oo guurkii wiilkii walaalkay hantida lahaa u burburis ayay leeyahay laakiin annagoon isku faraxsanna deetana waxaa dhacday inuu inankii lacagtii anna aan ururiyey isna ururiyey hooyadii xitaa ay gaadhay inay tiraahdo ninka isbitaalka ka shaqeeyay gabadhaadu xitaa la tumataayo ninkaasay jeceshahay maadaa warba u haya marka isagu wuxuu leeyahay wax kasta anaa ku raba إن الله وإنا إليه راجعون waxaasi annaga nooma muuqda annagunba isku muuqana ياب lacagtii waanu dhammaystirnay xajkii baanu tagnay waanu soo ducaysanay ilaahay baanu soo barinay 10 sano aan isqabnaa markaa waxna ismaanaan dhale 10 sano ayaan isqabnaa xajkii baanu tagnay ilaahay baan soo barinay waan ka soo noqonay markaan wax yar joognayba uur baa yeeshay ilaahay waa raxiim markuu wax ku siinayo meel fokaagama doone uurkii markaa yeeshay ayuu igu yiri fadhiiso naso ha dhaqdhaqaaqin halkaa ii fadhi aniga kuu shaqeynaya waayahay baan ku idhi halkii hadday sidii ahayd ayay hooyadii habeen maalintii dambe tiri annagaa gabadha caawinayna adigu iska soo shaqee annagaa raashinu keenayna anigaa isagan samaynayna markaa ilaa 4 bilood anigoo ah markaa maadaama aanan in badan wax dhalin oo qof weyn aan ahay 10 sano aan guri lahaa xoogaa aad baan ugu yar xanuunsaday gurigii bay yimaadeen cunta ii kariyeen markaas suuliga marka la gelayo kaabad yar oo sibir ah ayuu suuligu lahaa kaabadii bay saliid mariyeen إنا لله وإنا إليه راجعون suuligii baan isiri tag kaabadii bay kabihii dacaskii aan xidhnaa ila siiteen dabadaan dhulka ku dhuftay ilmihii halkiibu kusoo daatay يا ilmihii 10 sano aan sugaynay xaramka aan kasoo ducaysanay u sabarnay ilaahayna siiyey ugu horeeyey islaantii iyo gabdho ilmaaftiyadiisa ayaa waxay sameeyeen saliid mariyey kaabad إنا لله وإنا إليه راجعون intaa way isku dayaan iyagu si kasta noo kala furi lahaayeen faamilkooda iyo kayaga waxaa dhici jirtay mararka qaar hooyaday ay soo diri jirtay sawiro aan Kenya ku galay oo inamo xaafadda markaa joogay oo ilmaaftinahay aan la galay ay isagu soo diri jirtay oran jirtay nimankaasaan ay saaxiib laahay intay dadku ku soo dhiibto u tago u geeyo waxaad ku tirahdaan naagtaadu ninkaas saaxiib la ahayd maxaad ku falaysaa sawirada intuu soo qaado oran jiray maanta cadowgeena waxaana ii keenan xabiib laakiin anigu weligay ma aaminayo waxaa dhici jirtay in hooyadii naabtidii intay soo dirtay isagay naabtidii ay tiri guriga tagoo markay ag fadhido shukaanso si ay u maseerto waxaasoo dhan umaanaan joojin jirin waayo jacaylkayga ka weynaa hadda waxaa loo soo dhigtay ilmihii yaraa inagu soo biiray ee farxaddii ilaahay dhexdeeda ka abuuray kaabadii markaa saliid marka la meeyay kaabad ama xatabad si dadku u garanayaan suuliga marka la gelayo sibir ah baa saliid la mariyey
lugta markaa saa u saaray dacaskiila siibatay dabadaan dhulka ku dhuftay ilmihii markaa halkaas kusoo daatay dhakhtar markii la geeyey wax kastoo la sameeyey waa la joojin kari waaye gurigii baan imi markaa isagu niyadu ii dejinaya wixii leeyahay ilaahay baa ina siiyey ilaahay baa ka naqaatay kuwo kala badanna ilaahay baa keenaya markii horeba samir baan ku joognay waan dhakhtarkii baan kasoo baxay gurigii baan imi maalintaa ka horo reerkii ninkayga qabay cadaawad iimay gelin waxaan idhi laba mid soo kala gal inaad gurigan iga rarto oo magaaladan reerkiinu ku noolya iga rarto oon magaalo kala tagno nolol ka bilaabano iyo inaad hooyadaa la joogto anigu iska tago والله بالله ويا هيا wuxuu yidhi lagama yaabo inaan adiga intaan ku cidleeyo oo ama aan ku fasaxo meel kugu sii daayo aad iska tagto meel baynu ku wada dhimanaynaa intaanan guurin bay markaa hooyadii naabtidii intay u keentay bay ku tiri haddaad ducaa doonaysid gabadhanan kuugu duceeyey gabadhan naabtidaa wey naagtu intaasoo dhan waxba may soo dhalin ilmihii u horreeyana waa kan meesha saabunay gabadhu ku meydhisay kaabada saliidna looma marina bay ku siibatay waxa weeyaan iyadaa qof jilicsan ah gabadhan guurso haddaad ducaa doonaysid markaa wuxuu hooyaday buu yidhi markay igu tiri duco iyo habaar kala qaado ayaan qaadan waayay gabadhii ma maanta iyadoo khilaaf yaraa tiri magaalo kale iila guur ayaan intaa kuu samayn kari waayay waan kuu samaynay waan ka guurayna magaaladii baan ka guurnay magaalo kalean degnay magaaladii kale markaan degna muddo xoogaa in yar joognay ilaahay ilmihii labaad caloosha noo geliyey wiil buu noqday uu noo dhashay walaashiisi markaa oo maraykan joogta isaga dacwadu xiraysay ilmo kale haddana caloosha noo galay ما شاء الله uu noo ما شاء الله dhashay سوقرا laba awlaadaan sheekeynaya haysana jacayl dhaxal gala san fahmay ilaa hadda si haa fiican ba sheekada u socota ninkaasi inuu xumaanayba ilama ahaba qof xumaani kasoo jeedo ilama ahaba qofka intaas oo marxaladood kala gudbay gabadhaas ilaahu barakee reerkaas aamiin ilaahu barakee yaa rab ku soco annagoo laba ilmood haysana ayay dacwadii loo bilaabay nairobi baan tagnay weli xaafadayada iyo xaafadoodii sidii bay inoogu xun yihiin oo anigana reerkaygu isaga dhibaateynayaan isagana reerkooda anigay dhibaateynayaan nairobi baan tagnay markuu caafimaadkii wixii soo maray anoo laba ilmoodoo mid 6 bilood jira haysta ayuu tegey markuu saa u tegey uur kalaa igu soo baxay uurkiina waxaan ku dhalay 2 mataana ah 4 awlaada 10 sanaanu sabraynay oon anagu caruur isku ahay oo caqabad kasta kasoo gudubnay deedna markay maqashay xaafadayadii inuu wiilkii dhoofayo tegayo ayay nala soo saaxiibeen oo waanu khaldanay waxay saan maanaan moodeyn inaad nolosha intaas la gaadhisaan maanaan moodeyn markaa isagu wuxuu leeyahay laga yaaba hooyo inuu ilaahay soo hadeeyey aniguna waxaan leeyahay lacag jacayl bay xaafadeedu u leedahay u joojilmeen wixii hore inay inagu soo sameeyeenba qalbigay kasii guuxaya wiilkii maraykan buu yimi sharcigii buu qaatay wuu noo soo dacwooday aniga 4 caruur ahaa raas ballaaran ayaan hadda nahay waanu wada joognaa sidii baan isku ilaashanaa sidii baan dhabta isugu haynaa caruurtii ilaahay baa na siiyey caruur fara badan laakiin caruurta annagaa iska jecel annagaa lambar 1 ah caruurtaa lambar 2 ah marka caawa sheekadaas gabadhaasi waxay usoo dhiibtay waxay tiri habeen kasta murugaad ka sheekaysaan caawa jacaylkaygii dhaxal galay